noogayay uu ku marayay qaar ka mid ah gobolada iyo degmooyinka deegaanka ee abaartu saamaysay oo uu shacabka qabalaha Balli Janno ee degmada Gaashaamo uu kulan la yeeshay ay xukuumadda deegaanka kaga codsadeen celbiyo loo qodo maadaama ay baahidooda 1 ilaa 3 ay tahay biyo kamida madaxweyne baahiyaadkayga waxa ugu badan biyo waxaanu ka codsanaynaa nolol hadii la waayo nolol ma jirto waxaanu ka codsanaynaa biyo nagu taasoo qodobka koobaad mudane madaxweyne abaartii waxa kaaga warramay odayga marka hore waa biyo mar labaadna waa biyo mar saddexaadna waa biyo codsateen waxaan idhaaho khalad bay tahay ma jirto intaba xaq baad u leeyihiin wixii maxaan ku raacay abaarta ku saabsan inaan la qaybsano biilaana dhawno biyo idin raadino ceel laydin qado degdeg ayaa maxaan ku sameeynaa biyo raadin degdeg ayaa sameeynaa biilayna oo guyi jira baas maasha aga waxay xukuumadda deegaanka ka jawaabaysaa baahida shacabkeeda aadna ugu dhagan nugul ay muddo 40 cisho gudaheeda cilbiyood riig ah kaga biyo gaadhay 550 mitir oo ay dadka iyo dunyada ku nool dhulka ciidda ah iyo kuwa ka soo dolay dariskuba ay waqti xaadirkan ka faa'iideysanayaan iyadoo dhammaan loo dhameystiray goobaha ay bulshadu ka cabaan iyo waliba dararkii xoolahaba waana kuwan shacabka agaasi oo aysan marnaba niyadooda hore u gelin cilbiyood riig ah oo laga qodo goobtaasi ay ka cabi doonaan oo ay kaga bixi doonaan onkii iyo haraadkii ay qarniyada badan leel xumaayeen balse waqti xaadirkan ka faa'iideysanaya biyo nadiif ah oo Balli Janno looga qoday halkaan nimanka joognaana waa degmada Gaashaamo gobolay kamida oo Balli Janno la yiraahdo maanta waxaanu cabaynaa biyo riiga oo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida iyo kamaneedkiisa iyo waxgaradkiisa ay noo soo saareen oo bilaasha oo aan daal ka dhigo la kala xigin ayaanu maanta joognaa عبينا دولتنا waxa ilaahay noogu soo dhiibay gacan weyn oo biyeeye baad bale waxaanu joognaa maanta riigii Balli Janno aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa dawladda deegaanka sida ay noogu gurmatay iyo sida ay uga soo saartay biyaha meesha iyo sida ay imaka aan u cabayno iyo dhibaatadii markii hore nahaysay odayadii halkan ugu yimi mudanihii madaxweynuhu ayaan ka mid ahaa tartaran buu naga tagay madaxweynuhu hadalkii uu naga tagay waxaan ka sii xasuusanayaa waxaan idin ka qodi doonaa biyo cabtaan gugi iyo jilaalkiiba muddo yar intii uu naga sii maqnaa waxaa noo yimi qalabkii iyo riigii iyo waxqabadkii muddo imka ilaa 45 casha 2 bilood oo waxla uu noogu soo baxay ceelkii wuxuu noqday mid biyo macaan oo biyihiisa aad mootid kuwii samsamka lagala iman jiray dadka xashka taga biyaha ay la iman jireen weelka ku soo qaadi jireen ayaad moodaa kuwan inay yihiin intii riiga la taagay ay biyo ka soo baxeen ay noqdeen dar macaan intay bateen biyo badan noqdeen ay dar macaan noqdeen dadku ku baahi baxay ilaah baa mahad leh Balli Janno wax alla wax dawladdu ay nagala hadhay ma jirto aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin biyo bay noo soo saartay biyo waa ka dhareegnay waa dawladayadii mar hadii dawladdu noo ordayso de waxaanu farnaba garan mayno de waa mahadsantii الله تاكله دولة وين تاكله يسي هرات كي وانو قحما ونقا شفي قلحدي هرات وين نقا شفي وانو كم حسن يكون فرحسن هاي آلي آدان بيها قبيلة وجهلا الله تاجره بيها دولة نوصل صارتي goobtaan joogna waxa la yiraahdaa Balli Janno maxay ahayd tay waxay ka tirsan tahay degmada Gaashaamo bishaara waxaan ku bishaarana biyo si fiican ugu soo baxay waa laga dhargay waa la haraad beelay waxaan ku guuri wixii maxay ahayd waa liibaan baan ka helna ma sha Allah tabarakallah riigii oo nimca ayadoo la haraadsan yahay dawladdu ay dabadna dib koriyay biyo yahay laga siiyay ilaahay noo nimceeyay waxaana xusid mudan dhulka ciidda ah ama bariga deegaanka oo ah dhul joogiisu sareeyo oo xukuumadii hore ku guuldareysteen iska daacayla laga qodo ee xataa inay ku fikiraan laga qodi karo ayaa waxay xukuumadda deegaanka maanta ka arrimisay ay jabisay fikirkii noocaas ah iyadoo ceelbiyood riig ah ay ka mid yihiin xarshin awaare daroor danood iyo caale wardheer marsin iyo Balli Janno iyo waliba qaar kale badan ay ka hirgelisay aagaasi isla markaana waqti xaadirkan lagu guda jiro daraasaadyo lagu raadinayo goobo badan waxaana qaab shaqeedka ceelkan soo kormeeray mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen ku-xigeenka xafiiska nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda ee dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya mudan Ibraahim Maxamuud Mubarak wasiirka xafiiska